السلام عليكم aniga aan Xuseen oo kusoo dhawaad maskaxmaal muuqaalka waxa ku eegi doonaa browser kugu siinaya cryptocurrency hadhow lacag rogan kartid cryptocurrency-ga ama lacagta wax kugu siinaya kaliya in isticmaashid maalin waxa isticmaashaa Google Chrome ama Firefox dhamaantood waxa isticmaashaa nolol maalmeedkaaga tusaale oo kale YouTube ka soo gashid inaad Google wax ka raadisid laakiin xogta aad raadinaysid iyo xogtaas oo dhan kuma aha private xogtaas oo dhan company kala sii qaata oo hadhow xaysiisa kugu tusa lacagna ka sameeya adiguna waxba kama sameeysid laakiin company wuxuu sameeyaa company oo ka xiraya saan oo kale Facebook iyo Google inuu ku taraagareeyo oo xogtaada helo kadibna xogtaada wuxuu gelinayaa blockchain-ka wuxuu kugu siinayaa lacag xogtaada marba si isticmaashid waxaad helaysaa lacag kaliya wax kale kaaga baahna waxaad u baahantahay kaliya inaad isticmaashid browser-kan nolol maalmeedkaaga ku salaysid si Google Chrome-ka ama Firefox-ka wax raadin jirtay sidaad caadiga u isticmaashid kadib maalmo lacag uu kugu siinaya oo gudgal doon habka ula soo degisid habka u isticmaali kartid cryptocurrency-ga qiimuhu joogo waxyaalahaas oo dhan ka hadli doona laakiin marka hore ku cusubtay channel fadlan subscribe ku dhufan badhankaasi xagga siyaal gambalkan furanaysa ogaat mar walba maskaxal muuqaal soo geliyo sidoo kalena helmaan muuqaalkan leegtirada ku dhufan sulka xagga siyaal kor jeeda soo muuqaalkan asxaabada u sii gaaro uga faa'iideysan karaan way muuqaalkan waxa ka hadli doonaa browser kala dhaho Decenter halkan sa artid wuxuu ku leeyahay browse to earn isticmaal browser-ka saad lacag u hesho wax kale kaama rabo cryptocurrency-ga sheegana wax kale ama shaqo kale ma qabanaysid halkan wuxuu ku sheegayaa getting a bridge between internet users and application development with distribute ledger technologies an open source platform which enable you to manage and pay with your personal data arkan wuxuu ku sheegay waxaan ku sameeyay ku leeyahay hab aan lacag kugu siinano xogtaadana adigu maamulanaysid guud ahaan markaan soo koobno waa inta oo tigdoona habka ula soo deegi kar lahayd iyo devices-ka kala duwan available-ka u yahay laakiin waxaan rabaa inaan hoos yar socono oo isla eegno bal wuxuu yahay oo aad fahantid marka hore wuxuu Decenter yahay iyo soo shaqeeyo intaadan isu qaadin ama aadan la soo degin oo akoon ka samaysan what Decenter is all about halka ku qoran tahay guud ahaan Decenter muxuu yahay ama muxuu qabanayaa halkan ku sheegay use your data as a payable value xogtaada u isticmaal sidii wax qiimo leh oo lacag lagu siinayo kale payable value inay kula leedahay aad lacag ku helaysid isticmaal you retain a payable value assigned to the secure data you generate on Decenter waxaad lacag kaga heli doontaa buu ku yiri adigoo xogtaada lagu ilaalinayo oo xogtaada privacy-gaagi uu secure gareyn Decenter waxaan lagu keydinayaa xogtaada blockchain cryptocurrency ahaan baad lacag u helaysaa halkan wuxuu ku sii faahfaahinaya inaad xogtaada heshid adigu xogtaada ay ku keydsanaato oo cid kale ama company kale ugu guda gelin sidoo kale waxaad sameyn kartaa inaad value ama cryptocurrency inaad stake ku samaysid explorer ku sameyn kartid transactions wixii oo dhan aragtid waxaan waa u tagi doonaa wallet-ka markaad samaysatid oo aad wallet-ka gudihiisa ku samaysatid halkan kugu sheegaya wallet right in Decenter browser wallet-ka gudaha Decenter kugu jira oo ma baahna inaad third party ama company kale ama exchange kale doonatid oo aad halka lacagta hadhow ama cryptocurrency ku shuban kartid haddana hoos yar socono halkan waxa ku yaala white paper-ka wada akhrisan kartaa oo wuxuu company-ga loo xiriiro iyo company-da kale la sii shaqeeyo iyo xogtaas oo ogaan kartaa iyo cryptocurrency helasid iyo guud ahaan adigu company-gu u shaqeeyo laakiin badanka kula dulmari doono uma baahnid waad akhrisan kartaa aad ba kugula talinay akhrisatay iyo white paper-ka kale ee muhiimka ah marka halkan our solution hada aragtid Decenter waxa kula soo deegi kartaa device walba aad ku isticmaali kartaa tusaale oo kale Decenter Windows browser Decenter Mac Linux oo isticmaali kartaa Android oo isticmaali kartaa inkastoo beta yahay oo wali shaqadiisa lagu jiro laakiin waa isticmaali kartaa waad kala soo deegi kartaa halkan intaadan la soo degina marka hore waxaan kugula talinaynaa linkiga description-ka yaala ee xagga ugu sarreeya yaala ama qaybta ugu horeysa ee comment-ga yaala inaad ku soo dhufatid linkaasi waa invitation code waa link aan ugu talagalay inay maskaxmaal subscribers-ku ama daawadayaashu markay saa isaga diiwaan galiyaan Decenter inay ku helaan DEC ama DEC cryptocurrency-ga token-ka helaan oo markay saa isu diiwaan galiyaanba akoonkooda ugu dhacdo marka invitation code linki xagga hoose aad kala soo deegi kartid browser-ka meeshu doona ha noqdo halka kala soo deg marka hore waxaan rabaa inaan kula dulmaro saad ula soo deegi kar lahayd iyo saa ugu dhufan kar lahayd anaa kula dulmari doona waxaad u baahantahay marka ku soo dhufatid inaad iska diiwaan galisid oo aad samaysatid wallet kugu dhici karta cryptocurrency-gaaga marka saa artid guud ahaan browser-kan device walba kula soo deegi kartaa sidoo kale wuxuu leeyahay source code-kooda ku tusayo waa open source waxaad u fiican weeye halka waxaad ka eegi kartaa roadmap-kooda iyo meesha ka soo bilaabeen iyo meesha u socdaan guud ahaan 2020 quarter 1 oo kale quarter 2 saas u soconaya halkan waxa kugu tusaya partner-kooda iyo cid ula shaqeeyo waxa kale ka si fiican waxa weeye wuxuu ku tusayaa team-kooda iyo inta qof ay ka kooban yihiin waana hab aad u fiican company-gu transparent yahay oo isticmaalayaashiisa ama userskiisa u sheego dadka ka dambeeya company-ga iyo dadka shaqeynaya si qofku uu dareemo comfortable amaan u dareemo marka waa kuwa team-koodeena halka koosayso kale wuxuu ku sharaxayaa frequent asked questions-ka ama FAQ-ga halkan wuxuu ku sharaxayaa waa maxay cilaaqaad ka dhaxeeya PDF and DEC ID halkan wuxuu sharaxayaa PDF
waxaa loo soo gaabiyey ku leeyahay personal data value waana economic expression of the securely recorded online activity in your DEC ID. BDV waxaa loo soo gaabiyey halkan kuu sheegayaa in loo soo gaabiyey personal data value waana expression buu ku leeyahay kuwaasoo marka blockchain-ka lagu kaydinayo loo aqoonsanayo. wuxuuna kuu sheegayaa kaliya adaa xogtan access u leeyahay inaad booqatid. wuxuu kaloo kuu sheegayaa kaliya adaa dooranaya xogtan waxa loo isticmaali doono iyo isticmaali doono. bareefada rabtaa inay ku noqoto ma inay bareefad xogaa sii noqotaa doonaysaa xogaa laakiin public noqoto ma inay guud ahaan public noqoto adiga ku jirtaa buu ku yiri. halkan wuxuu kuu sheegayaa kale haddaan rabo inaan iibsado DEC ama DEC xagee ka iibsan karaa. haddii waxaa ka iibsan kartaa buu ku yiri adoo swap ku sameynaya iyo RC20 adoo ku bedelanaya DEC inaad ka bedelan kartid Ascendex oo Uniswap labadaas isku bedelaysaa ERC iyo DEC adoo isticmaalaya kuwan Uniswap iyo kan kale. halkan wuxuu kale wuxuu kuu sheegay laba su'aalood oo kale oo khuseeya tusaale oo kale community ma leeyihiin meelaha kaga beeri kartaa community-gooda iyo groupadooda. ta ugu dambeysana wuxuu kuu sheegayaa sidee u heli karaa ama u codsan karaa reward-kayga. halkan wuxuu kuu sheegayaa reward-kaaga waxaa lagugu soo shubi doonaa ama aad ka heli doontaa bishiiba mar account-kaaga. halkan wuxuu ku sharaxay blockchain-ka iyo intuu gaarayo laakiin waxaa u gudageli doonaa saad ula soo degi kar lahayd Decentral iyo saad wallet-ka u samaysan kar la u soo upgrade lahayd. marka hore saan kuu waxaad kusoo dhufanaysaa linka description-ka yaala ama qaybta ugu horeysa comment-ga ku pingareeyay. markaa kusoo dhufatid wuxuu ku keeni doonaa page sidan oo kale ku keeni doonaa uuna kuu sheegay in lagu soo invite gareeyo Decentral. waxaad ku dhufataan ku qortaan create new user. waxa muhiimka waxa weeye maadaama aad wallet ka samaysanaysid halkan saad aragtid buu kugu sheegay your seed phrase. seed phrase-kana waxa weeye waa erayo aad u baahantahay inaad save gariso meel dhigatid. saan oo kale erayadaas oo kale haddii wallet-ka uu ka lumo ama browser-kan ka dhilidmo computer-ka isticmaashid hadda dib aad ula soo degaysaa Decentral kadibna seed phrase-kan aad gelinaysaa halkaasaad ka helaysaa cryptocurrency-ga. marka haddaad taqaanid cryptocurrency-ga iyo wallet-ka u shaqeeyaan seed phrase-kan aad buu muhiim u yahay. waxaana kugula talinaya inaad ku dhufatid copy oo meel kale ku paste gareysatid ama aad ku dhufatid download PDF. kaliya waxaad ku dhufataa download PDF wuxuu kuu soo dejinayaa PDF-kii oo halkaasaad ku kaydsanaysaa. marba hadhow seed phrase-ka u baahatid halkaasaad ka soo gelaysaa. sidoo kale ishan aad ku dhufanaysaa saad u aragtid seed phrase-kaaga oo midmid baa meel ugu qoran kartaa ama screenshot baad ka qaadi kartaa. waxa kale muhiimka waxa weeye seed phrase-kaaga hadduu qof kale ogaado cryptocurrency-gaaga isaga gacanta u gelisaa. marka waxaa muhiim ah inaad seed phrase-kaaga ilaashatid oo meel ammaan ku save gareysatid. anigu waxaan ku dhufanaya download PDF oo PDF ahaan baa la soo degaya. waa kan waa la soo degay oo waxaan ku save gareystay computer-kayga. sidoo kale waxaa odhanayaa copy oo inaan copy gareeyaa rabaa in case aan miss gareeyo. kadib halkan hoosoo kale wuxuu igu sharaxayaa seed phrase-ka iyo waxaan u baahanay inaan sameeyo iyo inaan ilaashado iyo xogta necessary-ga igu sharaxaya. laakiin anigu maadaama aan garanayo oo cryptocurrency-ga in badan soo isticmaalay adigana kuu sharxay waxaan rajeynayaa isku page inaad joogan waxaan ku dhufanaya next. halkan wuxuu kuu sheegay inaad email gashatid oo email account-ka ku xiratid email sax halkan geli oo shaqeynaya. kadibna halkan sax saar oo inaad sharciyada aqbashid kadib waxaad ku dhufataa dhan. hadda wuxuu kuu sheegay email-ka inaad tagtid oo code-ka kugu soo direen halkan ku paste gareysid. email-ku waxa laga yaabaa inuusan kugu soo gelin inbox-ka oo xogaa wax ka raadin inbox-ka laakiin SMTP-ga cilada ka jira oo server-kooda ka jira waxaan u maleynayaa wuxuu Google ku aqoonsaday inuu spam yahay oo spam folder-ka ku rido. marka spam ma aha waxaad ka eegtaa spam folder-ka ama junk folder-ka eeg. marka spam folder-ka kusoo dhufatid waxa kuu soo bixi doonaa Decentral activation code ku dhufo kadib waxaa oranayaa report as not spam inuusan spam ahayn baa cadeynaya. kadib wuxuu soo gelayaa inbox-kayga. kadib halka waxa uga baahan waxa weeye code-kan yarka ah adigu waxa uma baahan hadda doonto inaad tiraahdo report not spam oo spam inuusan ahayn cadeysid kaliya code-kan uga baahan tahay adoo spam-ka joogo ka soo copy gareysan kartaa. kadib waxa ugu soo laabanaya meesha ugu weydiinaya code-kii oo ku paste gareynaya kadibna waxa ku dhufanaya confirm ama waad ku qori kartaa code-ka godadkan wax macna sameyn mayso. ugu dambeyntiina wuxuu kuu sheegay inaad la soo degtid browser-ka oo maadaama anigu computer Windows isticmaalay halkan aad ku dhufanaysaa ula soo dego. sidoo kale haddaad mobile isticmaalaysa halkan wuxuu kugu sheegi doonaa in mobile-ka kula soo degtid. marka waxaan ku dhufanaya download Decentral browser kadibna IDM-kaygii baa ii soo booday. waxaa u baahan inaad ku dhufto start download ama xaggan hoose adigu kuu geliyaa save ku dhufo. markuu soo dego haddaa computer ahaan u isticmaalaysid waa zip ama waa rar file waxaa u baahan inaad extract gareeyo saan uga dhigo folder caadi ah. haddaad mobile kula soo degaysa Play Store-ka toos ku geynaya uma baahnayd inaad extract iyo waxan martid oo shaqo halkaa kaagama baahna maadaama computer isticmaalayo wuxuu u baahan yahay inaan ansib ka dhigo oo wiraar ka bedelo folder caadi ka dhigo. marka waa kan sida appkii right click baa odhanaya waxaa odhanaya run as administrator kadibna iska sugayaa wuxuu sameynayaa xogta loo baahnaa uu soo dejinayaa kadibna isaga dhameynaya oo wuxuu ugu duubayaa sidii browser-ka caadiga ah. waayo duubista markuu dhameeyo wuxuu bilaabaya installation-ka iska sug xogaa install-ka markuu dhameeyo isaga soo kacaya kadibna markuu dhameeyo sa aragtid waa kan soo kacay Decentral. markuu saa
u soo kaco waxa ugu horeeya ku weydiinayo waa maxay waa inaad akoonkaaga iyo waalidkaaga ku xidhatid waxaa ku dhufan inaad ku qoran tahay login with seed phrase maadaama marka hore soo diiwaangeliyay aadna isla kay soo diiwaangelisay haddaad cusub tahayna create new user baad ku dhufanaysaa laakiin haddii aad hore u lahayd waalid akoonkaagii horena seed phrase-ka ay soo save garaysatay halkan seed phrase-ka geli halkan aan ku dhufanay login with seed phrase kadibna halkan waxaan gelinayaa seed phrase-kayga inaan kaa qariya laga yaabaa qayb seed phrase-kayga maadaama qof walba seed phrase-kiisa waa in isaga gaar u noqdaa kadibna anigu seed phrase-kayga waxaan kasoo koobi gareynayaa pdf-ka la soo degay halkan waa kaa qarinayaa bass phrase-kayga waxaa dib ugu noqonayaa decenter halkan aan ku paste gareynaya kadibna hide baan kaa eriyo waa qariya mar kale ishii baan saaray calaamada isku talaabta ah kadib hoos baa u soconaya halkan waxaa ka dooranaya passwordka inuu ka kooban yahay 8 xaraf oo isugu jira xaraf weyn xarfa yaryar lambaro symbols waxyaalahaas oo isku dhafo waa password adag noqda kadib waxaa ku dhufanaya login kadib login markaan ku dhuftay waxa xigo i weydiinaya waxa weeye personal information-kayga oo magacayga koowaad magacayga labaad ama magaca baxay xoogaa information adiga kula xidhiidha qof saaysaasaan ahay waxaa saaysaas qabta xoogaa bio kaa rabaa halkan waxaad gelinaysaa xilligaa dhalatay date of birth-ka adoo sanadka iyo bisha iyo maalinta ugu dambaysiinaya halkan genderka kaa tahay ka dooro ma male baa tahay mise female baa tahay labadaas inagana khuseeyo dee labadaas ilaahay abuura marka waxaa ku dhufanaya male baan ahay halkan kasi dooranaya hadaad gabar tahayna female ka dooro halkan waxaad gelinaysaa connected email emailkaad marka hore isku soo diiwaan gelisay emailkii halkan geli oo emailkiiba rabaa inuu kugu xidho akoonkaa ku dhammaystiro marka emailkaas isku soo diiwaan geliya soo verify geliya halkan gelinaya ugu dambeyntina waxaa ku dhufanaya safe marka intaasoo dhan markaad buuxiso ani waa personal datadeeda kulama dulmari doono waa buuxinaya safe baa ku dhufanaadna buuxiya safe ku dhufan next stepka si ugu gudubno sidoo kale xagga sare waxaad ka aragtaa avatariska kaa dooran kartaa profile picture-ka kadib kaa doontaa dooran kartaa oo ku dul dhufanaya halkan waxaa kugu weydiinayaa xogta u baahanta in la traagareeyo oo la kaydiyo oo personal data value pdf-ga marka hore soo maray xogta u baahanta inaad kaydsatay oo decenter ku kaydsatay inta ma anigu sax baan saaraya oo open baa ku dhufanaya blue baa ka wada dhigaya waxaan ku dhufanayaa confirm kadibna guud ahaan sida abka waa dhammeynay ugu dambeyd waxaa ku dhufataa dhan kadib browserkaagii decenter buu toos kuu geyn doonaa waa kan browserka decenter oo halkan saa artid waxaad aragtaa latest postigii oo dadka caadigaa sidoo kale waa sidii social media oo kale waxbay soo dhigi karaan dad kale waxay soo dhigaan waxay kula xidhiiri karaan dadka kale sidoo kale adigu laftarka waxaa ku dhufantaa create new post halkan aad ku qori kartaa waxaad soo dhigi kartid sidoo kale cabdimajid xuseen waa soo follow garayn kartaa socialkii oo kusoo xidhmi kartaa waxa muhiimka waxaa weeye halkan sare waxaa yaala saddexan icon baa yaala kan ugu horreedaa ku dhufatid wuxuu ku tusayaa decenter inuu kaa xidhay ad blocker oo wuxuu leeyahay ad blockerka wuxuu kuu sahlay inuu dhammaan kambaniyada inay trackinkii sida googleka facebooka guud ahaan kambaniyada waaweyn oo dhan inay ku traagarayn karaan xogta ururin karaan hadhowna xaysiis u isticmaali karaan buu sameynaya marka xaysiiska oo dhan kaa xidhaya ad blocker trackinkii wixii oo dhan kaa xidhaya haddana markuu bluga yahay uu furan yahay haddaan ku dhuftana off buu noqonaya madow buu noqonaya kan ku xiga waxaa weeye decenter gudihiisa waxaa kugu samaysan vpn uma baahna vpn kale in la sutay halkan dhexda ku dhufanaysaa saa vpn u furatid sidoo kale locationka kala duwan halkan aad ka dooran kartaa ee aad rabtid inaad ku xidhantid default ahaan toki u dooran laakiin kaa rabta halkaas ka dooran kartaa kan ugu dambeeyana waxaa weeye waa portalkaagii personal data value-gaagii intay aad haysatay sidoo kale activity-ga aad samaysay oo halkan kugu soo dhacay activity-gii haddaad rabtid inaad staking samaysay waxaasoo dhan kugu soo dhacayaan sidoo kale waalidkaaga haddaan ku dhufto oo kale waa ka waalidkaagii haddaan ku dhufto waalidkayga waxaa koobi garaysmaya waalid adresskaygii oo haddaan rabo inaan soo iibsado DEC ama haddaan rabo inaan la baxo qof kale u diro oo exchanger kale u diro halkaasaan ugu kala diri karaa oo adreskaas isticmaali karaa marka guud ahaan waa very simple decenter habkaad lacagta uga helisidna ama lacagta uga helisidna waa very simple waxaa u baahantay keliya inaad isticmaashid browserka oo tusaale kale haddaan hadeer new tab furo sidii google chrome-kaan u isticmaali karaa aan firefox halkan waxaan ka raadin karaa waxaan doono coin market cap haddaan ka raadiyo kale waa kan oo search engine-ku isticmaalaya waa DuckDuckGo waa very private oo privacy-ga aad buu ilaaliyaan wax tracking ama heli doontid ama kuma arki doonaa kadib waa kadaan soo furo coin market cap-ka oo aan ka eegno qiimaha uu ka joogo DEC-ga ama DEC intaan hadeer browserka soo isticmaalaya haddaad aragtay oo kale xawaarihiisu aad buu u dheereynaya waa browser aad u xawaaro dheereynaya oo web 3.0 buu ku beesgaraysan yahay aad buu xawaaro dheereynaya very modern kawaaka decenter DEC qiimihiisu hadeer wuxuu marayaa 0.06417 qiimaha halkan aad ku arkastid haddaadan cryptocurrency wax ka aqoon ma aha cryptocurrency aad helasid ee halkii cryptocurrency ama halkii token ee DEC-ga ama DEC baa wuxuu u dhigmaa intan waa cryptocurrency uu kordhi karaa hadeer saa aragtidba hoos bay u dhacsan tahay oo suuqii cryptocurrency oo dhan baa down ah oo hoos u socdo haddaynu eegno all time high hoos haddaan u socdo all time high-ga wuxuu gaadhay 0.02428 marka waa meesha ugu sarreysay uu gaadhay sanad ka hor waana cryptocurrency waxaa laga yaabaa in $1 gaadhaba marka dadku aad u isticmaalo waa browser cusub maadaama yahay marka aad loo soo isticmaalo marka sidoo kale halka sare uu kaa tusay qiimuhu marba joogo cryptocurrency-gaaga intaad data
value haysatid oo anigu hadda hal baa haystaa maadaama aan kugu saacasuumay sidoo kale halka waxa ka bedeli kartaa hadda waxaan joogaa mainnet testnet waa bedeli kartaa marka guud ahaan waka decenter saad u isticmaali kar lahayd waxaan kugula talinaynaa si maalinla u isticmaashid si xogtaada war private kugu noqoto cryptocurrency si bilaash ku heshid badanka dad badan baa ku oranaya xagaan ka shaqeysana kana kooka kuwa ka shaqeysan kartid oo wax walba waxa u baahan yahay waqti inaad siisid oo qabatid dhamaan hababkan channelka inuu ku soo dhaw habab shaqeynaya laakiin shaqo u baahan yahay qof walba wuxuu rabaa in shortcut keelan kala abto intaas muuqaal ku soo afmeeraya oo ka hadlayay decenter iyo cryptocurrency-ga DEC-ga u heli kar lahayd si bilaash kaliya adoo browser-ka isticmaalaya wax shaqo kala aan qabanin bishiina aad u xaadiraysid lacag fiican oo cryptocurrency oo qiimaheedu ku kordhi karo hadda ka hesha muuqaalka fadlan channelka maskax maala subscribe dhaado ku fanay barkaasi xagga soo yaala gambalka furnaaya saawo ay tamar maskax xal muuqaal soo galay soo kala hayma muuqaalkan lecture ku fanay sulka xagga soo yaala korjeeda soo muuqaalkan asxaab badan si gaari karo laga faa'iideysan karo inta muuqaalka xig kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aad rabtid inaad lacag dheeraada si samaysid ku soo dhawo baridii oo ah berbulsheed kaas oo aad asxaabtaada kula xiriiri kartid post isla wadaagi kartid stories ka soo dhigi kartid wixii maalintaada ku cusub asxaabtaada meshan gareyn kartid adigoo isticmaalaya like dislike ama hashtagska samaysan kartid pages iyo groups aadna maamulan kartid live stream aad ka soo gali kartid si toos ah iyo features kale oo badan waxa xiisaha badan waxa weeye mar walba aad baridii wax soo dhigto ama postiska kale ka qayb qaadato waxaad helaysaa points ama dhibco kaas oo hadda u isticmaali kartid inaad pro membership ku codsatid dhawaana aan pointska u rogi doono in qof walba lacag ahaan ka dhigto pointskiisa xagee lacag ka sameynaya oo aad saxan tahay waxaad awood u leedahay inaad samaysatid blogs iyo marketplace kaas oo aad alaabtaada iyo adeegyadaada si bilaash ugu iibin kartid laakiin waxa intaa ku si dheer baridii wuxuu leeyahay affiliate program dhagahaaga waxay maqleen waa dhab waxaad ka helaysaa lacag qof walba aad ku soo casuuntid baridii si bilaash oo hawl yari ah si aad wax badan uga soo ogaatid qaabka iyo sida uu shaqeynayo subscribe channelka baridii hadda tag browser-kaaga oo ka raadi baridiye.com ama si hawl yari ah uga soo deg appska Play Store-ka